السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. غير شرفت المركز الدنيا دي جوكتا كسر هذا يوتيوب channel ست قرح العافمات ولا شيء زين ما أنت هالكم حنوجها هيا وحلو يقان ولا فيرا أما دعر في صومال أهم واتسا أن جعل ريل وان أدبان وجعل دعرت أدبان واستعمالها في ذوقنا وحكي سبسنان دونا فائدة اللي ده دعرت أولى ده مقارك isla mar ahaantaasna qaababka kala duwan ee aad u isticmaali kartid gurigaaga dhexdiisa ama aniga shakhsi ahaan Zainab aan u isticmaalo bahashan aad baan aan u isticmaalo una jeclahay runtii wax badan way iga caawisaa haddii aad nagu cusubtahay fadlan subscribe-ka qac ku sii haddii aad hore noola joogtaan dhammaantiin soo dhawaada ila share gareeya like-ta subscribe-ta intaba ha kala reebinna biidnillaahi kariim daawash wacan haddii aan ka bilowno aloe vera gel maxay faa'iido u leedahay runtii aloe vera gel waxay aad faa'iido u tahay maqaarka waliba maqaarka qalqalan dadka maqaarka qalalan leh ama maqaarka sensitive ka leh runtii aad ayay u fiican tahay oo bahashan waxay samaysaa maqaarka way qoysaa maqaarka waxa waaye qalalka badan ka baabiisa sidoo kale dacarta waxa ku jirto waxa loo dhaho antibacterial iyo antifungal maqaarka haddii bacteria ama fungal ama wax jiro dhan way ka dhameysaa way ka baabiisa sidoo kale maqaarka gudgududka maaragtay iyo haddii qorax kugu soo dhacdo ama baan asooyil ama dab ku taabto fiir dab hadduu ku gaaro xitaa waad marin kartaa dab yar hadduu saa kugu leefo ma aha adigu inuu maqaarka kaa qaabmo hadduu maqaarka kaa siibmo bahashaan isticmaalin dhakhtar u tag yacni waxaan ka wadaa gudud oo kale meesha haddii ku casaato oo dab ku taabto bahashan aad bay u fiican tahay qoraxda haddii kusoo gubto baan kugu soo samayso ay meesha kusoo gududato kusoo casaasto wejiga ama gacan ama meel ay meeshii ku noqoto meel balbal ah ku balbalayso oo kale waad marinaysaa waa daawo oo way daaweysaa healing properties waxa la ku jiro oo isla markii balbalkii wixii dhan bay zamkaasiina oo ka dejini waa daawo min Allah natural waa baashan Soomaaliya dadka jooga way cabaan way isticmaalaan way isku daaweeyaan runtii waana la cabaa baashan oo cabitaan ahaan way ku fiican tahay tan ma cabaysiya tan karan la jeel la waay waxa lagu talagalay in korka la marsado laakiin dacarta geedkii hadaad heli kartid hadaad cabi kartid waa okay way fiican tahay waxyaabo badan ee Soomaalida isku daawayaan waana ma sha Allah taasi waa taas laakiin aniga maanta waxaan ka hadlayaa qaababka loogu isticmaalo maqaarka maaha sida markay cabaysid iyo qaabka ku saabsan yahay waxaan ka hadlayaa insha Allah marka bahashan skinka sidee maxay ka tartaa ama see loo isticmaali karaa ama faa'iidadeeda waa maxay baan ka hadlaynaa faa'iidooyinkeeda aan ka hadlayo waxa waaye taas inay u fiican tahay finka oo kaleeto oo finanka dadka bahashan aad bay ugu fiican tahay haddana waxa kale ee bahashan mucjisada ay leedahay waxa waaye maqaarka nooc walba loo isticmaali karaa calaasha ma kala laha inaad u isticmaashid maqaar saliid mise maqaar qallalan oo kale all skin type ayaa bahashan loo isticmaalaa waa daawo natural ah soo haddii fin aan leedahay oo kale finka aad bay lafta gunta ka soo daaweysaa oo waxyaabaha ama bacteria kuu keenaysa in fin yeelato oo kale maaragtay ayay baabi'isaa finkiina halkaas uma taqaanaa ay dee iskaga baaba'ayr finka way u fiican tahay waxay kaloo u fiican tahay qalqaleelka badan maqaarka oo dadka cuncunka qaba wejiga ka cuncuna ka balbala ka gudguduuda qoraxda haddii kugu soo dhacdaa tuugaaga timaadid oo wejiga ku balbala ku cuncunaya bahashan dhac isku sii ayar anaa ku dhahay maqaarkaaga isla markiiba waad degaysaa waxaad dareemaysaa adiga dhan habi baad dareemaysaa marka bahashan waxyaabahaas oo dhan ayay maqaarka ugu fiican tahay oo runtii dhinac walba maqaarka way ugu fiican tahay xanuun walba haaraha iyo xitaa madmadowga haddaad bahashan basatid mar walba way kaa baabi'inay qalqalaalka badan wejiga gabdhaha inta dharaayo face baan leenahay inta ka cabanaya dharaay faceka way baabi'isaa aamus hooyo tan kale oo iyadana muhiim ah bahashan tintana way fiican tahay timaha aad bay u qurxisaa timaha way dhalaalisaa shine bay ka dhigtaa silky bay ka dhigtaa timaha haddii isticmaalkeeda aad basatid oo sidee ku isticmaali kartaa markii aad marsanaysid ma garanaysaa waxyaabaha nafaqada ee guriga lagu samaysto sida avocado iyo moosar iyo wax yar ama aad isku shiishiidanaysid madaxaaga aad marsanaysid ayaa iyadana ku daraysaa waad ku daraysaa hal qaando laba qaando waadna marinaysaa madaxaaga fahamtay wax allaala wixii aad isku qasanaysa xinaha xitaa iyo qasilkaad madaxa marsanaysa ku daraysaa wax ay diidaysa ma lahan baashan dhinac walba ayaad u isticmaali kartaa alxaq minasta marka taasi waa qaabka aad macnaha maas ahaan hair maska ayaad ku darsanaysaa baashan oo hair mask baa ka samaysanaysaa qaabka kalan aniga u isticmaalo oo shakhsiyan ilmahayga waliba aan aad ka ugu isticmaalo baashan anigu waxaan u isticmaalaa as hair gel aan u isticmaala oo macnaheedu tahay soo ma jirto timaha hair gel la soo gado timaha saa u duubto qurxiso ama timaha lagu style gareeyo ma jirto taas camal ayaan macnaha ana bahashan u isticmaalaa sideen yeela
tanaan soo qaadaa waan qabtaa dhowr qaando iyo waxaan isku daraa saliid zaytuunka ama saliid coconut oil habba saliid aan haysto iyadaan isku garaaca markaan isku garaacana wax yaroo kareem ah bay noqonaysaa oo adag oo micnihii timaha markaad marsin aad ku istaalgarin kartid aniga gabadheed yarta ah iyo wiilkeedaba labadaba timaha markii aan rabo inaan u istaalgarayo ama aan meel aadayno ama aan timaha rabo inaan u qurxiyo jeel aan magaalada kasoo gatay waxaa ma u mariyo kanaan jeel ka samaystaa heer jeel baan ka samaystaa saliid zaytuun saliid qumbe ama saliid saliidad haysatay iyada isku garaacaysa timaha ilmaha ugu istaalgaraynaysa isla marka timihii haddii bisbis ahaa oo qalqalalnaa isla marka timihii intuu dhalaalo uu noqdo black noqdo madow noqdo dhuxula ayuu timihii waxay noqonayaan shining ay noqonayaan soo marka waa amazing aniga saas aan u isticmaalaa haddii idikuna ka faa'iidaysa wacan wiilkayga yarkaa wiilka war baan haystaaye waan u mariyaa saas aan ugu shalayaa timihiisa dhan maasha allah style buu noqdaa taas waa qaabka aniga naftirkeyga aan mararka qaar ku istaalgaraysta timaha taasi waa taas oo timaha markii ay timaado labadaas wey wejiga markay timaado sidaa u isticmaali kartaa bahashan wejiga markay timaado waxaad ka samayn kartaa heer face mask baad ka samaysan kartaa oo qasilka iyo huruudda iyo caanaha garoorka iyo iyada intaas ku darsataa wejiga marsan kartaa wax allaala wixii wejiga aad qasqasanaysa marsanaysid oo qasil iyo huruud iyo waxyaabahan noocaas aad ku darsan kartaa waana marsan kartaa waa hair mask face mask ayay noqonaysaa wejiga wax mask bay noqonaysaa haddaad ka rabtidna face cream baan ka samaystaa baashan waxaan ku jeclaa face cream baan ka samaystaa sidee uga samaystaa iyada waxaan isku daraa coconut oil maalin baa idin soo samayn doona biidnillahi kariim iyo waxaan isku garaacaa vitamin e ga dee loogu talagalay in la cuno magaranaysaa mid timaha ah baa jirto ma aha taas midka la cuno caadiga ah baad duleelinaysaa saliidda kala baxsa ama iyadoo waxaad helaysaaba skinka loogu talagalo meelaha lagu gado vitamin e dhala yar ku jirto iyada iyo kan iyo vitamin a serum oo iyadana aad heli kartid iyo saliidda coconut oilka la dhaho ama saliidka olive ka daa helo labada ka helo inta isku garaaco bay waxay noqotaa bahal yar oo kareem ah wejiga runtii qaleelka badan iyaga kaga ilaaliya qaleelka badan inta badan waan isticmaalaa marmaraan iska ilaawo dhacdaa haddaan isbuuc ilaawo isla marka wejiga u qalqalanaan arko dhac iyadan baa ordaa kareen intaan soo qatago oo moisturizing ah wejiga maba soo qataba maxaanba usoo gadanaa easy way anaaba samaysan kara guri dhexdiisa bacbac waan marsadaa kaala arag habeenkii ku seexda kareem ala kareemkaan marsanaya ka hoos marsadaa haddii aan make up marsanaya ka hoos marsadaa waxaa kale ay ku fiican tahay bahashan waxa waaye make upka waa ka hoos marsan kartaa dadka wejigooda saliid u leeyihiin oo finan kale oo diidaya waxyaabaha saliid ay isku qasqasayaan inay wejigooda mariyaan ayada kaligeed ay marsan karaan waxay ka hoos marsan karaan make upka oo bahashan make upka calashan way taagtaa wayna qurxisaa wayna dhalaalisa iyada markaa marsato make upka aad ka dul marsid kaal arag make upka si fiican buu kuu qabanayaa make upkiina waa kusoo baxaysaa intaas qaab idiin soo sheegay ayaa bahashan aloe vera gel u isticmaali kartaa ana already tan waxyar baa ku jira way sii dhamaanaysaa waxaa jirta oo kaleeto noocee fiican gabar baa soo weydiisay baashan laftirkeeda gabar baa kasoo codsatay waxayna ugu tiri abaayo waxaa kaloo kasoo hadashaa nooca fiican bay runtii abaayo aloe vera gel noocyo badan kambaniyo badan baa soo saara calashaan kambaniyo badan ayaa soo saara marka kambanigaasaa fiican mise kambanigaasaa xun kuma oran kara aniga laakiin waxaan kuu sheegay oo keliyaata marka aad soo gadanayso iska fiir iska eg midda carafta badan maaragta oo too much carafta ay kasoo urayso ha isticmaalin nooc caraftiisa uu degan yahay ama aan carafba lahayn oo dacartayna caadiga camal ah oo la very gel haddaa iyada organic heli kartid oo waddan horumarsan aad joogtid waa falilahi xamdi haddii soomaaliya aad joogtidna waxaad ba heli kartaa iyadoo original geedkii baa soo goosan kartaa moogta geedka soo gooso dhexda ka kala jir saa u kala dilaaci xabagta dhexda ku jirta kala bax عندنا سمبل استعمال كل جد انت الاستعمال سوقات اي وجهك لو مساج كريا اسلا markii waxa dareemaysaa kaala arag hadii balbalku hay hadii cunku hay hadii qalqalalku hay hadii skinka aad rabtid ba inuu dhalaalo shining baasha maqaarku way dhalaalaysaa hadii aad isticmaashid mar walba qaabka saxda ah aan idin sheegayn aad u isticmaashaa ani qaab wax aad baasha waa natural ani way ba u isticmaali kartaa ku darsataya qasilkaaga kaligiis marsataya kareenka samaysataya saliida kale inta ku garaacay anyway ba isticmaali karta wax ay diidayso malaha wax dhib ku keenay ma marka noocyada ay idin soo sheegay Soomaali noocan oo kala laga ani noocan waa markii ugu horeysan isticmaalay noocan waxaan isticmaalaa badanaa aniga nooca caaga balaaran ku jiro sawirkeeda halkaan ka soo sawir doona oo ay ku qoran tahay 99% ay ku qoran tahay band oo 99 macnihii 99 waxa waaye organic camal sida dacartii saxda oo kale waaye ku qoran tahay ayaan isticmaalaa caraf badan malaha uu degan yahay dadkuna badanaa markaan baaritaanka sameeyay kaasi aad u isticmaalaan kan Soomaaliya aad loo keenaa xoogaa caraf uu leeyahay marka caraf yar baa ku jirta waa dareemsa baasha
markaas cadar baa ku jira macni way carfiyaan moogtaa wax bay caraf bay ku daraan waxa marka laakiin iyadoo caraftu degan tahay oo habi ah oo dacarta caadiga ah oo maasha allah baad isticmaalaysaa nooca idin soo sheegada heli kartaan insha allah noocaas ku dadaala idin la karim hay'ada organic ada heli kartaan oo dukaamada organic meelaha horumarsan hadaa joogtid kasoo gadan kartid haddii iyadiyo maxaa la dhihi jiray original aad heli kartidna waxa waaye oo geedkiyo sidiisa ahna is the best haddaan kuu sheego runtii oon ku dhaho keeba feega keeba saxa waxaa sax ah geedkii caleentii soo go'day taasaa hubtaadi wax kale oo ku dhihi karo 100% waa sax ma jirto laakiin markii taa laga soo tagana kuwa kale aan soo sheegay biidnillaahi kariim iyadoo organic ah dukaamada organic laga helaa ama iyadoo caaga aan soo sheegay saa balaaran ku jirto oo kale waa okay haddii kale tan naftirkeeda ma xumo waa isticmaali kartaa aniga waan isticmaalay inkastoo aan ka jeclaadan kana doorbiday tan aan idin sheegay caagada balaaran ku jirto oo sawirkeedana halka aan soo dhigi doono waxaan filayaa dhammaantiin inaad ka faa'iidaysateen videoga maanta waxaan filayaa dhammaan gabdhihi iga socodsaday inaan kasoo hadla dacartana inay qanci doonaan iyo kuwa kale Soomaali weyn meel kasta adduunyada joogtaan wiil iyo gabarhbana waa isticmaali kartaan hooyo aabbo adeer abti wax ay diidaysa ma laha dhammaan waa wax natural organic ma aha kareen oo yani baalki ah وما سندي دمانتينا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.